الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن داود يال halkan waa warbaahinta VOS xarunta dhexe magaalada Muqdisho. waa hadii ay noogu barteen inaan hawada idin soo marsiino warbixin caalamka daafiisa inaga soo gaaray. warka intuu hawada ka baxaya anigoo Sharmaaka Xuseen ayaa idin warabi doono qodobada ugu dooroon waxa qayb ka ah ciidamo cusub oo ka tirsan darawiishta waqooyi bari oo tababar loogu soo xiray gobolka Sanaag. doorashooyinka koonfur galbeed oo waji cusub yeelatay iyo sidoo kale musharax aadan madoobe oo gaaray magaalada Baydhabo. kulan muhiim ah looga hadlayay sirdoonka macmalka ah ee AI-da iyo mustaqbalka Soomaaliya oo ka dhacay dalka Mareykanka. taliska booliiska waqooyi bari oo fariin adag u diray hay'adaha garsoorka ee maamulkaasi. ciidanka amniga Jowhar oo burburiyay miinooyin la dhigay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar. shacabka waqooyi barina waxaa looga digay inay dhibaateeyaan ajaanibta ku nool waqooyi bari. wararka Soomaalida ka baxsan daawadayaal waxa qayb ka ah saraakiisha militariga Israa'iil oo soo saaray digniin ku saabsan koonfurta Lebanon iyo ururka Hezbollah oo ku dhawaaqay in jab xoogan ay gaarsiiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka Israa'iil. intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka iyaga kuwooda ugu dooran. u diyaar garow warka oo dhameystiran. aan ku bilaabay ciidamo cusub oo ka tirsan darawiishta waqooyi bari Soomaaliya ayaa tababar loogu soo xiray gobolka Sanaag. wariyahayaga Cabdirashiid Xasan Walaah ayaa qodobkaas soo dhameystiran VOS ugu soo diray Laasacaano. cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka darawiishta ee dawladda waqooyi bari ayaa maanta si rasmi ah loogu soo xidhay tababar heerkiisu sareeyo oo ka socday xerada Goldooxan ee gobolka Sanaag, iyadoo munaasabadda xidhitaanku ay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay. tababarkan ayaa diiradda lagu saaray dhismaha ciidan leh xirfad iyo anshax adag, kuwaas oo awood u leh sugidda amniga iyo difaaca deegaanada. askartan tababarka loo soo xidhay ayaa soo bandhigay dhaqdhaqaaq ciidan iyo gaardis muujinaya tababar heerkiisu sareeyo. mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka waqooyi bari iyo saraakiisha ciidamada ayaa goobta ka jeediyey khudbado dhiirigelina, iyagoo sheegay in ciidankan cusub ay lafdhabar u noqon doonaan xoojinta amniga deegaanada waqooyi bari iyo la dagaalanka khataraha amni ee jira. waxaa si gaar ah loo xusay doorka hogaamineed ee ay qaateen saraakiisha kale ah Jenaraal Cabdi Madoobe iyo taliye Hargaanti Darwiish, kuwaas oo lagu tilmaamay hormuudka kobcinta iyo tayeynta ciidanka darawiishta. ugu dambeyn saraakiisha maamulka waqooyi bari ayaa caddeeyey inay sii wadi doonaan horumarinta ciidamada si loo helo awood ciidan oo dhammaystiran, taas oo door weyn ka qaadan doonta xasilinta iyo difaaca guud ee dalka. doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliyana waxa ay yeesheen wajiyo cusub, iyadoo saacadihii ugu dambeeyay halkaasi uu gaaray murashax madaxweyne koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe. wariyahayaga Maxamed Cali Siyaad ayaa inoo dhameystiraya. magaalada Baydhabo maanta waxaa si weyn lagu soo dhaweeyay waqti ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Baydhabo ku soo dhaweeyay hogaamiyaha ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Jibriil Cabdirashiid Xaaji, iyadoona goobjoog ay ka ahaayeen mas'uuliyiin sarsare, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. soo dhaweynta wafdigan ayaa muujinaysay xiisaha siyaasadeed ee ka jira magaalada Baydhabo xilli ay socdaan diyaar garowga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed. ujeedada safarka Aadan Madoobe ayaa la xiriirta xoojinta wada tashiyada siyaasadeed iyo ka qaybgalka geedi socodka doorashooyinka, kuwaas oo la filayo in door weyn ay ka ciyaaraan mustaqbalka maamulka koonfur galbeed. hogaamiyaha ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Jibriil Cabdirashiid
ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed ay ka go'an tahay qabashada doorasho hufan oo xor ah isla markaana waafaqsan dastuurka, isagoo sidoo kalena xusay in la soo dhoweynayo dhammaan musharaxiinta iyo sidoo kale daneeyaasha siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed. Dhankiisa Aadan Madoobe ayaa uga mahadceliyay mas'uuliyiinta iyo shacabka reer Baydhabo soo dhoweynta ay u sameeyeen, isagoona carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wada shaqaynta si xasilooni siyaasadeed iyo horumar loo gaarsiiyo deegaanada koonfur galbeed. kulan muhiim ah looga hadlayay sirdoonka macmalka ah ee AI-da iyo mustaqbalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay carayga dalka Mareykanka. wariyahayaga Ismaaciil Maxamed Sayid Cali ayaa qodobkaas oo dhameystiran inoo haya. kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay sirdoonka macmalka ah ee AI iyo mustaqbalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin, aqoon-yahano iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed. kulanka ayaa si gaar ah loogu falanqeeyay sida tiknoolajiyadda casriga ee AI ay uga qayb qaadan karto horumarinta adeegyada dowladda, waxbarashada, amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. waxaa sidoo kale laisla soo qaaday caqabadaha iyo fursadaha ku xiran adeegsiga AI. danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka Daahir Xasan Carab, oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii kulanka ka hadashay, ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay la jaanqaado isbeddelka tiknoolajiyadda si loogu faa'iidaysto horumarka caalamka. aad baan ugu faraxsanahay VOS arrinka ay samaysay oo kii ugu horreeyey shirkii ugu horreeyey ee AI ka hadla mataqaanaa ku wajahsan Soomaalida iyo AI-da si ay iskula shaqayn lahaayeen. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. magacayga waxaa la yidhahdaa Duraan, waxaan ahay software engineer. waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay shirkii VOS oo loogu talagalay in laga hadlo arrimaha AI-da. waxaan ku guwaabinayaa qof kasta inuu ka soo qayb galo shirka AI-da lagu qabanayo Soomaaliya December. waxaan doonayaa caawaan ka soo qayb galay shirkan la yidhaahdo Frontiers of Somalia oo laga hadlayay AI-da. waxaan doonayaa in halkan taageeradeeda ku daro shirka lagu qaban doono Muqdisho December insha Allah, laga hadli doono AI-da iyo Soomaalida iyo siduu saameyn ugu yeelo. aniga waxaan rabaa inaan ku daro taageerada kabacdi in maanta waxaa laga hadlay sida AI ay u samayn karto improvement oo ay fursado badan u abuuri karto. laakiin waxaa ka maqnaay oo aan weli laga hadlin khataraha ay keeni karto AI-da marka aan sida saxda aan loo implement garaynin ama aan loo hagin. waxa aad iyo aad muhiim u ah in aqoontan AI la gaadhsiiyo waddankii dhallinyarada Soomaaliyeed meel kastay joogaan laga tababaro. kambaniyadu ay ku soo daraan adeegyada ay qabanayaan AI. aad iyo aad buu shirkan muhiim u ahaa, waxaana maaragtay fursad weyn noo ahayd inaan maaragtay la kulannay ama nagala soo qayb galay ambassadorka. waxaa ina dhaafay in kacaamo hore oo badan oo soo baxay sida kii internetka ama kii warshadaha. marka kani waa mid aynu fursad u heli doonno inaynu si toosa uga faa'iidaysano, dadkeenana uga faa'iideyno. waxaa maanta aad ugu faraxsanahay qofkii raba aqoon, he doesn't need xildhibaan dambe inuu ka sugo scholarship. literally maxaa u baahan tahay telephone iyo good stable internet. aqoontaada saasaa ku kordhin kartaa. inta waxaa la joogaa xilli cusub iyo waa cusub iyo qarniga cusub. waxaan ka dhigi karnaa marka haddii Cali Gaashaan iyo tiimkiisa VOS is abaabulay, haddii waxa ay arkeen iyo aragtida ay arkeen, haddii Soomaali ay ku garab siiso in Soomaaliya ay qayb ka noqoto tartanka AI-da socota, inaan qayb ka noqon. tartankan wuxuu uga sahlan yahay tartamadii hore. wuxuu u baahan yahay inaad maskaxdaada maasho, oo u baahan inaad lacag haysato. inta Soomaaliya Faysal baa si fiican u sheegay, wuxuu yidhi adduunyada sistemiyo ayaa ka jira oo dowladahoodu isticmaali jireen. sistemyadaas malaayiin qof ayaa ka shaqaysa. in laga guuro oo mid cusub loo guuro, dad cusub la tababarana waqti badan iyo qarash badanna way leedahay, reluctance badanna way leedahay oo dadku jinjiga ugu dhibaa. taliska booliiska waqooyi bari Soomaaliya ayaa fariin u diray hay-adaha garsoorka ee maamulkaasi. mar kale wariyahayaga
cabdirashiid xasan walah ayaa laasacaano warkaasi ka soo diray. taliyaha ciidanka booliska waqooyi bari Soomaaliya gaashaanle sare Siciid Xasan Faarax ayaa fariin adag u diray hay'adaha garsoorka ee gobolka isagoo ka digay in la fududeeyo xukunka lagu rido dambiilayaasha gaar ahaan kuwa lagu helo dambiyada la xidhiidha khamriga. taliyaha ayaa si cad u sheegay inaysan habboonayn in dambiilayaasha la xukumay ay helaan fursad ay ku gataan xukunka xabsiga lacag ku bedelid, arrintaas oo uu ku tilmaamay inay si toos ah u wiiqi karto amniga iyo kala dambeynta bulshada waqooyi bari. dhanka kale taliyaha ayaa si weyn u ammaanay shacabka ku nool waqooyi bari isagoo tilmaamay inay door muhiim ah ka qaataan sugidda amniga. every time waanu qabanaa waana la xukumaa khamriyada wadarkiisa wala soo bandhigaa khamrigaanu qabanaa hadda uu yaryahay khamriga uu yaraaday isbuucan gudihiisa waxaa ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer ay qabteen waan ugu hambalyeynaya 16 khamriile baa la xukumaa waa xabsiyada la dhigay oo 5 sano ilaa 3 sano ilaa 4 sano la xukumaa. walada garsoorka halka waxaan uga faa'iideysanayaa waan ka codsanayaa inaan dadkaas xaligaas loo gadin maadaama ay yihiin darogaystayaal muqaadaraad ka ganacsada oo dhib badan loo maray oo booliisku mareen awaye amniga magaalada waxaa nagala shaqeeya amniga waqooyi bari waxaa nagala shaqeeya shacabweynaha hadduusan nala shaqayn anaguma shaqayn kareen. amnigu waa shacabka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shacabweynaha waqooyi bari siday amniga noogala shaqeeyaan. amniga innagaa ku nool haddaan amni jirin nolol ma jirto. waxaan leenahay sidaa noola shaqaysaan mar labaad iyo mar saddexaad ba noola shaqeeya. aad iyo aad baad noo mahadsantihiin. ciidamada ammaanka magaalada Jowhar oo markaasi xoga sirdoon ka helay shacabka degmada Jowhar ayaa waxa ay burburiyeen miinooyin la dhigay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar sida uu ku waramayo wariyahayga Ismaaciil Maxamed Said Cali. laamaha amniga ee magaalada Jowhar ayaa si guul leh u burburiyay 2 miino oo halis ku ah nolosha shacabka kuwaas oo laga helay xaafadda Hanti Wadaaga. miinooyinkan ayaa lagu arkay guri ku yaala laanta afaraad halkaas oo ay si degdeg ah uga howlgaleen ciidamada amniga si looga hortago waxyeelo ka dhalata. howlgalka qarxinta oo si taxadar leh loo fuliyay ayaa wax khasaare ah geysan taasoo muujinaysa feejignaanta iyo xirfadda ciidamada. goobta ayaa waxa isugu soo baxay dadweyne aad u badan kuwaas oo muujiyay farxad iyo nafis kadib markii laga dulqaaday khatarta miinooyinka. tallaabadan ayaa qayb ka dadaalada joogtada ah ee lagu xoojinayo amniga magaalada iyadoo shacabka lagu dhiirigeliyay inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka isla markaana soo sheegaan wax kasta oo shaki leh. qarxinta miinooyinkan waxay muujinayaan guul muhiim ah oo laga gaaray sugidda amniga Jowhar iyadoo la badbaadiyay nolosha dad rayid ah iyo hantidooda. Bishaar Cabdulqaadir Macow oo ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa waxa uu ummadda islaamka ay ka codsaday inay caawiyaan. wariyahayaga Ismaaciil Maxamed Said Cali ayaa qodobkaasi inoo dhamaystiraya. waa dhulyaal aan awood badan u lahayn inuu keligii wax qabsado keligiina socon karin balse waa kursiyaal maciin baday hooyadii oo waayeel ah. ninka aan ka hadlayo waa Bishaar Cabdulqaadir Macow oo la ildaran duruuf adag oo nololeed balse ma uusan ka rajo dhigin riyadiisa nololeed. maanta waxa uu VOS Somali TV u soo booqday in bulshada Soomaaliyeed uu la wadaago xaaladiisa nololeed ee dhabta ah. baahida ugu weyn oo uu qabo waa inuu helo gaariga korontada ee qofka naafada keligii uu isticmaalo si waalidkii ku dhiban riixidda gaarigan uu saaran yahay uu ugu nasiyo maadaama ay waayeel tahay. bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ayuu ka dalbaday inay ka caawiyaan helista gaarigaasi iyo in loo sameeyo shaqo abuur si noloshiisa ugu maareeyo. bismillaah magacaygu waa Bishaar Cabdulqaadir Macow waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo naafa ah kuna sugan magaalada Muqdisho. waxaan naafooway 2013 markaas bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ii soo kacaan inay ii soo gurmadaan. muddo 13 sano ah ayaan naafa ahay oo weligeyna caawinaad ma helin weligey wax garab isii ma helin
marka Soomaaliya waxaan idin ka codsan doonaa inay isoo kacdaan inay soo gurmataan anigu oo muddo dhan 13 sano oo naafa ah waxa u baahanahay wheelchair elektaroonig ah waxa u baahanahay shaqo abuur waxa u baahanahay dhakhtar wax walba aad awoodaan inaad garab igu siisaan maya dhakhtar waa tagi laakiin waxay ku leeyihiin neerbaa ku hayo ee dibadda aad dibaddan ilaa hadda aan lacag uma hayo oo lacag uma helin haa dibad in la kaalmeeyo bulshada ay ka cano dibadda ay geeyaan meel meesha daawadeeda laga helo linkii waan jeclaa lahaa ilaa hadda aniga waa jeclahay wheelchairkan waxa iga caawiyo hooyo oo joogto ay iga caawiso laakiin wheelchairkan kuma soconayo meel bacaada waa laamile marka wax kaloo laamiga bacaad kuma soconayo ilaa hadda nolol maalmeedka ka hor bisha nolol maalmeedka maalin laga hal maalin waa la waayaa deegaankeedu waa degmada Garas Valley gaar ahaan masaajidka Carrad wheelchair elektaroonig iyo dhakhtar inay iga caawiyaan ka codsanaya oo xaaladdeeda caafimaad aan ogaado ilaa hadda xaaladdeeda caafimaad ma ogaanin cid kasto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Hilsaare Xamse iyo madaxdii hore Hilsaareeshii hore dhammaan siyaasi kasto arkay inuu codkeeda ka soo jawaabo noloshaadii horan markii aad naafowday saameyn caankee ayay kugu yeelatay والله سامين وين واحد وقف نافع وحنا لو قبضوا معانا مغالده انه ادو باهن yahay wax walba inuu qabsado baahan yahay laakiin qabsan kar hay waxa sheegtay 2000 iyo 2003 soo naafooday ka hor waxa dhahayd qof lixaadkiisa u dhameystiray hay qof ka hor ana socdo dhakhtar ali geeyay isbitaalada magaalada gasho isbitaalka mid ninkii lugtiisa ku tagay gaar gacan ugu soo laabtay maxaa sababay marka waxa sababay ilaa hadda ma ogi waa gacmihii liiga siina waa kuwa nadiif laakiin qaarka dambe barlaat waayo hadda maanta sakiina ku jarjartaa taa ma dareemay sakiinada ku jarjartaa ma dareemay sakiinada qaarkaas dambe maanta ku jarjartaa taa ma dareemay nambarkeeduna waa 7 25 94 58 Xuseen ku soo baxay Abdulqaadir 7 marka idinkan aad iyo aad u maasantihiin dhamaantiin waa idin mahadcelinayaa walaal ka qayb qaado u gurmashada walaalkan Bishaar Cabdiqaadir Macow oo baahi weyn u qaba inuu soo dhaxgalo bulshada wahagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta VOS iminkaas warar ka baxsan Soomaalida waxaa qayb ka ah militariga Israa'iil ayaa soo saaray digniin culus oo markaasi ku saabsan shacabka ku dhaqan koonfurta Lebanon ururka Xisbullahna waxay markaasi ku dhawaaqeen in jab xoogan ay gaarsiiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada Israa'iil wasaakiisha ciidanka Israa'iil hogaamiye ayaa soo saaray digniin degdeg ah oo ku wajahan dadka ku nool koonfurta Lebanon iyagoo ugu baaqay inay u hoggaansamaan tallaabooyinka amniga ayna ka fogaadaan dhaqdhaqaaqyada meelaha qaarkood maadaama xiisaduhu weli ay socdaan inkastoo ay jiraan xabad joojino aan caga badan istargeyn war-saxaafadeedka ayaa sheegaya in ciidanka Israa'iil weli ku sugan yihiin koonfurta Lebanon iyagoo wajahaya waxay ku tilmaameen howlgallada argagixisada ee sii socday ururka Xisbullah dhanka kale ururka Xisbullah ee dalka Lebanon ayaa maanta ku dhawaaqay in ay fuliyeen 2 weerar oo kala duwan oo ay u adeegsadeen droniska ismiiraaminta kuwaasoo lagu beegsaday dhaqdhaqaaqyo ka tirsan ciidanka Israa'iil ee ku sugan magaalada xuduudda ee Taiba labadan bayaan oo ay soo saareen kooxda ay ku sheegeen in weerarka koowaad lagu bartilmaameedsaday cutubyo ka tirsan ciidanka Israa'iil ee ku howlanaa daadgureen iyo sidoo kale halka weerarka labaad lagu beegsaday askar isku urursanaysay magaalada Siin warbixinta ay kooxda soo saartay ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in ay jiraan khasaare labo oo ka dhashay labada weerar wahagaag daawadayaal guud ahaan muuqaalkaasi waxa uu gunaanu dohaa warka warbaahinta VOS oo xilligan idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho warkaasna intuu hawada ka baxaya anigoo Sharmaaka Xuseen ayaa idin waramayay idinoo ku maasantii daawashada warkaasi inta warka xigaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh